barasaabka gobolka Badhan ee Somaliland Maxamuud Xaamud Cumar ayaa soo bandhigay laba gaari oo uu ka mid yahay gaarigiisii iyo sidoo kale mid ka mid ah gaadiidka dagaalka kuwaasi hore loo shaaciyay in Puntland ay kaga qabsatay dagaal ku dhexmaray hadaftimo barasaabka iyo ciidamo ilaalo u ah iyo sidoo kale ciidamo ka socday maamulka Puntland waxaana barasaabku u mahadnaqay sidii ay uga difaaceen isaga iyo gaarigiisaba ciidamadii la socday oo uu ku tilmaamay kuwa gutay waajibkooda taliyaha fadhiisimaha ciidanka Yube Colonel Ibrahim ayaa Puntland uga hanjabay in ciidamada Somaliland gafi doonin weerarkii lagu soo qaadayna ay ridcelin ka bixi doonaan waxa gacanta lagu hayaa gaarigii barasaabka gobolka Badhan iyo gaarigii ciidanka xooga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee Bartalaas qoray ilaahay mahadi weeye labadii gaari waad aragtaan gacanta ciidanka iyo gacanteedii ku jiraan waxaan rabaa dadkii wararka been abuurka ah kaga faanayay garoowe hodheeladeedana kaga sheekeynayay gaari baanu gacanta ku haynaa waa markhaatimo doonto inaan hantidayadii aan gacanta ku haysano waxaan mahad gaar u soo jeedinayaa ciidankii la socday oo hogaaminayay Colonel Nugaal iyo ciidankiisii ammaan bay mudan yihiin siday u difaacdeen aniga iyo gaariga aan watayba nimankan caadaystay had iyo jeer inay dadka gobolka Badhan ku nool amni darro ay ku abuuraan waxaan leeyahay dawladdu waxay ka bixin doontaa jawaab cad gefkii nala kula kacay ciidanka qaranka iyo dawladduba tallaabo cad ay ka qaadi doonaan mar labaadna ma dhici doonto waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ah xuduudda ugu ballaaran ee Jamhuuriyadda ay leedahay ilaahay xamdigii weeye in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland uu ka baxay qabiil uu yahay ciidan qaran waa nasiib darro kii xaqdarrada inoogu soo duulay inuu qabiil noqday 7 baabuur oo tiknika ah ayuu gaariga yar dhishikii kali la dagaalamay wax xabad ku taalo arkaysa waxaan aad u hambalyeynaya oo intaas saarnayd laba wiil baa ka dhaawacantay intoodii kale way caafimaad qabaan sarkaalkii watay waa kan Maxamed Cali Nugaal baa la waa taliyaha ururka laas qoray degmada laas qoray waa battalion commander gudoomiyihii la socday hal gaari kaliya ay wateen iyagoo caafimaad qabaan waana ku mahadsan yihiin isaga dhiciyeen cadawga waxay difaaceen madaxda la socdeen waxay difaaceen hantidii qaranka waxay difaaceen naftoodii difaac nafsi bay hayeen iyagu cidna dalaal kuma doonan iyo gardarro toon midna waan u sheegayaa nimanka gaari gudoomiye wataynta wada u galeen waxbaanu cirkan biyo ka soo dhaamin lahaa ciidanka qaranka ayaan idin gafi doonin hadday bilow inoo tahay farakaciyaarkaad wadaan annagaan idin gafi doonin iyaga la idinka waayin faataa baqta taatan marka waxyeelada geystaan ku faan maanta been baa ka sheegayseen taliyaha ururka Maxamed Cali Nugaal aad baan kugu hambalyeynaya sidaad u difaacday madaxdaad la socotay iyo hubkii qarankaba سعيد مصطفى راسيد قرباوي وراركة تلفزيون كبدا على TV